السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada tirsigan cusub ee barnaamijkeena kaasoo ku saabsan kaalinta kaga aadan odayaal dhaqameedka Soomaaliyeed, horseedka iyo difaaca dhulka iyo cidda Soomaaliyeed. kaalintaas iyada ah ee ku aadan guud ahaan odayaal dhaqameedka iyo isimada iyo cuqaasha beelaha iyo jilibada kala duwan ee beelaha Soomaaliyeed. saan ogsoonnahay iyadoo aan barnaamijkan ka horeeya oo la mid ah aan kaga faallooday maqnaanshaha kaalinta culamaa udiinka ama wadaadada Soomaaliyeed ee kaga aadanaa u ololeynta difaaca dalka, inkastoo arrinkaas isaga aan raagay, balse beryahan hadda ugu dambeysay waxaad moodaa in arrinkii wax weyn iska bedelay. yaanu arrin weyn oo mug leh noqon oo qaabkii isaga ahaa oo looga baahnaa aanu ku dambeyn, balse waxaad moodaa inuu arrinku wax la-aanta dhacmo. wixii soo socdana waa loo wada joogaa iyo kaalinta wadaadada kaga aadan ka qaybgalka horseedka iyo difaaca dalka. tirsiga kan isaga ah daawade waa mid ku saabsan oo u gaar ah kaalinta ku saabsan odayaal dhaqameedka guud ahaan iyo isimada ka soo jeeda beelaha Soomaaliyeed. waxaan u malaynayaa inayba idinku filnaan lahayd dhiirigelin mar haddaadba aragteen odayaal asaagiin ah oo Oromo ah oo u ololeynaya dhul ballaarsiga Itoobiya, qowmiyadda Oromaduna ay ka mid tahay, kuwaasoo gaaf wareegayay magaalooyinka waqooyi ay ugu horeyso magaalada Hargeysa. waa nasiib darro run ahaantii dhacdadaas iyada ah, isla nasiib darro iyo ayaan darro waxa ah iyadoo ay dhacday dhacdadaas iyada ah ee kasoo jeeda ismo dhaqameed Etoobiyaan ah, gaar ahaan Oromo ah, balse aan lahayn wax falcelin ah oo kasoo jeeda odayaal dhaqameedka Soomaaliyeed intii dhacdadaas iyada ah soo noqnoqonaysay. arrinkaas isaga ah ka sokow marka laga yimaado waxa taagan xilliga kan isaga lagu sugan yahay oo ka wada dheragsannahay ololaha diyaar garowga ka hortagga cadowga Itoobiyaanka ah, balse nasiib darro kaalintii odayaal dhaqameedka Soomaaliyeed iyo isimada Soomaaliyeed ilaa iyo hadda aan lahayn, oo aanay arrinkaas isaga difaaca iyo horseedka dalka aanay ka qaybgelin, codkoodiina weli la la-yahay. nasiib darrona sooyaalka markaan dib u milicsano daawada dhegayste la arkayo in odayaal dhaqameedku ay ahaayeen kuwii la saanqaaday oo soo dhoweeyey gumaysigii Yurubiyaanka ah ee Soomaaliya kusoo duulay, iyagoo ahaa odayaashii la saxeexday heshiisyadii iyaga ahaa ee la ogaa, gaar ahaan odayaasha beelaha
waqooyiga Soomaaliyeed marka laga reebo beesha dhulbahante ee dhammaan odayaal dhaqameedkii simadii waaweynaa xilligaas isaga ah ee beelahaas iyaga ee xusan la saxeexdeen heshiisiyo isticmaalkii Ingiriiska 1884 inta u dhaxaysay la soo gaadho 1885 markii labaad dambena uu arrinkaas isaga ah sii gaadhay odayaal dhaqameedkii koonfurta Soomaaliya iyo bariba iyo Soomaalida Jabuuti haatan iyo dan maanta maxaa dan ah odayaal dhaqameedka Soomaaliyeed waxa ku waajib ah in ay u howlgalaan la falgalaan sidii loo howlgelin lahaa beelaha ay ka soo jeedaan ama matalaan ama maamulaan iyo sidii loogu istaagi lahaa loogu hagarbixi lahaa difaaca iyo horseedka dalka looga baahan yahayna beel kasta oo Soomaaliyeed inay iscaddayso oo ka hortagaas iska caabinta duulaanka Itoobiya kaalin mug leh oo muuqata ay kaga qayb gasho kaalintaas oo ah cudud military inaad xoogga keentaan in aad haddaad tihiin beelo Soomaaliyeed nafta hurtaan arrinkaas isaga ana waa lama huraan mar haddii ciidankii qaranka aanu isbixin karin oo aanay jirin ciidamo qalab sida ee Soomaaliyeed oo tayo ku filan wata taasoo dalku burbursanaa 30 sannadood ee ugu dambeysay kala maqnaanshahaasuna uu keenay horseeday in la waayo ciidan qaran oo dalka difaaca abuuridda ciidan qaran oo dalka difaacana ee tahay arrin u baahan hawl badan oo socotay sanadihii dambe balse marka loo fiirsado halkii looga baahnaa aan weli la gaadhin arrinkaasuna uu noqonayo mid sii socda oo waayihiisa qaata balse ilaa inta arrinkaas isaga ah isku filaanshaha cudud qaran la gaadhayo loo baahan yahay muuqaal kasta iyo si kastaba oo dalka kan isaga ah aynu u dhalanay lagu difaaco saas awgeed beelaha Soomaaliyeed ee kala duwan gaar ahaan beelaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay iyo odayaal dhaqameedkooda inay kaalin mug leh oo la taaban karo kaga qayb galaan difaaca ciidda iyo badda Soomaaliyeed oo wax walba oo qiimo leh la taaban karo ee dalka u huraan laga bilaabo naftooda kuna daydaan asaagood oo aan u jeedno odayaal dhaqameedkii Oromada ah oo Soomaalidii gacan saarka la lahayd ka iibinaysa siyaasadoodii arrimaha dibadda halka kuweenii Soomaaliyeedna ee weli shibanayaal yihiin markay noqoto arrimaha siyaasadeed ee gudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeedna la og yahay qaabkay ugu
xataa markay u baahan yihiin ama ay rabaan, iyagoo fulinaya ujeedooyinka siyaasadeed ee maamul goboleedyada ku sheega Soomaaliyeed. tusaale haddaan ka soo qaado dagaalkii Laascaanood, beelaha harti kaalin mugle bay ka qaateen, arrin loo baahnaa buu ahaa. balse maanta waxaa taagan arrinkii isaga ahaa tilmaam mid ka weyn, saameyntiisu ka weyn tahay, baahidiisu ka weyn tahay, oo u yaalla qaranka, saameynaya qarankoo dhan. saas awgeedna laydinka baahan yahay inaad kaga qayb gashaan kaalintiinnii difaaca dalka. arrinkaasuna aanu ahayn mid idinka si gaara idinku koobneen, balse guud ahaan beel kasta oo Soomaaliyeed uu arrinkaas isaga ah mas-uuliyad gaara ka saaran yahay iyo mas-uuliyad guudba. saas awgeed waxaa loo baahan yahay inaad arrinkaas isaga ah ku tartantaan oo lagu dadaalo, oo wixii muruq iyo maalaba loo horo. aydinna ka sugin oggolaansho maamul goboleedyada aada hoos tagtaan oo la oran karo inay Itoobiya ku xidhan yihiin. arrinkaasuna waa mid kala caddaan doona daawadayaal, dhegaystayaal. waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo ka la mid ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.